dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa ay saldhig ciidan ka furtay deegaan uu ku yaal xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Ethiopia sida uu warkan inoogu faahfaahinayo wariye Cabdiqayr Maxamed Jaamac deegaanka Daarusalaam ee gobolka Mudug ayaa waxa ka socda horumarin kala duwan oo ay wadaan bulshada ku nool deegaankaasi taliye ku xigeenka saldhigga ciidanka booliiska ee deegaankaas ayaa waxa uu ka warbixiyay hawlo isku tashi ah oo lagu dhisayo saldhigga iyo waliba halka ay wax u marayaan arrimaha booliiska ka howlgala deegaankaasi magacayga waxa la yiraahdaa Xidigle Xuseen Cabdi Cilmi waxaan ku sugnahay deegaanka Daarusalaam oo ku yaala xadka Ethiopia iyo Puntland waxa halkan ka howlgala ciidanka nabadgelyada booliiska Puntland waa deegaan waxa weeye balaaran waa deegaan ay ka socoto shaqo fara badan meesha hadda aad u jeedaan aan taaganahay waa saldhigga booliiska deegaanka Daarusalaam waxa ka socdaana waa shaqo waxa weeye hadda dibudhis iyo saldhigyo la diyaarinayo saldhigan aad u jeedaan si iska wax u qasaa baa lagu dhisayaa bulshada deegaanka isku tashatay ayaga dhisanaya saldhigan hadda sida aad u jeedaan waa shamiitadii baa qasan dhismihii baa ku socda dhawaana inay gabagabadaan rajeynayna hadii la haydmo inta markaan hawsha saldhigga uga soo tago halkan waxa ka socda hawlgallo ciidan hawlgallo lagu xasilinayo nabadgelyada lagu ilaalinayo xuduudaha lagu ilaalinayo ilaalinta deegaanka sida dhirta in la jaro kale arrimahaas halkan ka socda waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guud ahaan dawladda Puntland oo runtii naga taakulaysa ama naga kaalmaysayba inaan waxa weeye halkan ka howlgallo dhinaca kalena xarunta hooyada iyo dhallaanka ee isla deegaankaas ayaa iyadana waxa ka socda horumarin kala duwan oo ay bulshada deegaanku wadaan kuwaasi oo ay ku sameynayaan xarumo isku tashi ah oo lagu horumarinayo deegaanka madaxa xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaas ayaa waxa uu ka warbixiyay hadda halka ay wax marayaan iyo waliba qaybaha haatan ay ku darayaan MCH-ka deegaankaasi awal hore waxaan noo shaqayn jiray 3 qol oo health boss buu ahaa muddo dhow oo hadda 6 bilood ka hor wuxuu noqday health center ciriiri waan dareenay oo meesha ciriiri bay ahayd waxa weeye dhisme deegaanka isku tashi ah baa ka bilowday halkan waxa weeye waa 5 qol iyo baranda weyn qolkan waxa weeye waxa qaybtan waxa weeye 2 qol oo midna yahay BNC midna uu yahay delivery iyo labadoodii suuli qolna waa 9 mitir qolna waa 4 mitir xagga waxa ka xiga 3 qol oo loogu talagalay ABI-dii talaaladii iyo maxaan ku dhahaa ANC oo maaragtay hooyada u reyd ah iyo qolkii farmashiga ah meel fiican buu marayaa 2 mitir buu marayaa hadda shubki baa lagu xiray waxa weeye deewaana garan ka dhaawaa aad mashruuc aad u ballaaran weeye deegaanku meesha hadda uu buu marinayaa waxaan doonaynaa cid walba oo waxa weeye inay ka qayb qaadato mudan inay ka qayb qaataan sida hay'adaha iyo dawladda iyo waxa weeye jaalidaha intaba Cabdiqayr Maxamed Jaamac Jubaland TV galkacyo